dee waa iska hayban dadkoo sii wada farxa markaad aad kacdo maaha wax lacagi jarto haadaa min fadli rabbi السلام عليكم ما شاء الله دور jeer baan sheego de way iska hayban dadkoo sii wada farxa markaad aad kacdo maaha wax lacagi jarto haadaa min fadli rabbi aad iyo aad baan idigu wada salaamayaa qof kaste teetalka uu caawa halka ku fadhiyo iyo inta kacdayba waqtigoo igu yaraa ugeed khudbadii baan bilaabanayaa anigu caawa waxaan u kacay dhowr arrimood oo sheekhana dhex maray ilaahay marka ugu horrayso waxaan ka baryayaa inuu sheekh ismaaciil u naxariisto iyo waalidiinteen iyo intii dhibatayba naxariistaa ilaahay aan ka barinay ka bacdi sheekh ismaaciil buug iyo laba iyo saddex iyo afar toona sheekh ismaaciil laguma soo koobi karo haddii qisooyinkii qof u dhex maray uu qofku ka sheekeeyo anigu waxaan ka sheekaynayaa wakhtigayga yar dhowr qisoona dhex maray sheekh ismaaciil ilaahay ha u naxariisto isaga iyo culummadii kale tabliiqa ee diinteenna islaamkeenna soo gaadhsiiyeba waxa aan haddaan bilaabo sheekh ismaaciil waxaanu isbarannay 99kii taqriiban ama 98kii khuruujkii ugu horreeyeyna waxaan baxay 2000 masaajidka weyne jameecada hargeysa saddexdii cishee u horreeyey waxaa laga joogaa maanta 25 sannadood khuruujyadeydii ugu horreeyey sidaasay ku bilaabmeen waxa aan xasuustaa sheekh ismaaciil diyaaraddii u horraysay aan raaco waxaan raacay anigoo tabliiqa oo sheekh ismaaciilna hoggaaminayo maanta haddaan cadaaladii sheekh ismaaciil sheego maalintaa markii khuruujka aanu baxaynay ayaa jabuuti baanu u baxaynay oo isjimaac ka dhacay beri toolo kaloo isjimaacii bilaabmaya maanta ninka ka hadhaa dee waa khatar sheekh ismaaciil bay qoladii diyaaraddu ku tiri sheekh ismaaciilow ilaahay u naxariisto sheekh ismaaciilow qoladaadan tabliiqa min reeb kuraasta ma gaadhaysee sidaasaanu isu wada eegno waxaan isudhi sheekhu talow ma idinku idin reebi dhalinyar baanu nay sidaa intuu sheekhu u eegi buuhi siciidow suu yidhi hee aabbo suu yidhi hadh aabbo markiiba dacwad qalbigayga gashay bay noqotay maanta nin waliba madaxii nin kastoo lacag li horta wuxuu odhanayaa inanku horta kayga yar ha joogo sheekh ismaaciil ma oran wallaahi wuxuu yidhi siciidow suu yidhi hee aabbo suu yidhi hadh suu hadhay haya aabbo wuu dhaqaaqay wuu noqday waxay taasi ku tusaysaa ninka madaxda ah ee meel loo dhiibaa iyo ninka diinta ka shaqaynaya sheekhiiba marka uu ilaahay dartii u socdo ilaahay dartii u hadlayo inuu cadaaladdiisu ay sidaa tay markaanu tagnay jabuuti ayaanu qiiroonnay raggii waxaan ka xasuustaa ila socday madaxweyne kaarshe khadar cabdiqaadir kaashacaawa halkan ma joogee cuntada marka la cunayo tabliiqa waa la isbartaa waxaanu iska jeclaannay culummadaa badan iyo tabliiqaa badan in qof kastaa ilaahay jannada meel ka geliyo waxaanu nidhi mar kastaa magaciisii uu janno raaciyey ninkaa khadar baa yidhi magacaa suu yidhi khadaruljanna adigana magacaa cabdicasiis uljanna saddex markaanu maraynu sheekhiyo sii jeedaa intuu soo jeestay yidhi waa ribo ka wada jannadii maxay ahaayeen wuxuu yidhi haddaad jannada sidaa u jeceshii khuruuj baxa haye baanu ku nidhi sheekh ismaaciil oo bakistaanna taga ilaahay xilliguu kuu qoraad khuruujkaa dheer baxaysaa maalintii dambaa masaajidkii uu sheekhu halkan ka sheegaa calimataan muddo 19 sanno laga joogo ayaa sheekh mahad maxamed cadaad oo halkaa fadhiya iyabaa khuruuj baana la saaray calimataan baanu ku baxnay 3 habeen baanu ku baxnay annagoo sidaa calimataan u hurda waa markii u horraysay noloshayda aan jannada ku riyooday waan alxamdulilah dhaa ayaa ilaahu markhaatibaad ka ahayd ayaa anigoo hurdo salaaddii subax markaa salaaddii subax tukanay baan in yar jiibsaday marakaneecooyinka yaryarla dhex seexdaa soo baxay anoo marakaneecadii ku dhex jira ayaa nin ka mida iminka culummada waaweyn weliba amiirada ah ilaahay cimrigiisa ha raajee waa nin tawaaduc badan oo meelahan buu iska fadhiyaa waa cumar sheekh hadduu joogo waa amiir ku-xigeenka labaad ayaa markaa oo mu'adina laakiin ku jira ehel shuuraha ayaan oon anigana garanayn aniguna aanan garanayn laakiin aan garanaya inuu mu'adin
ayaa ku riyooday anigii iyo Umar Sheekho meel aad u qurux badan sidaa u taagan oo geed ag taagan rumaana khamiisyo dahabana xidhan iyo golxub dahaba waariya Umar Sheekh baa yidhi si uu dhahay waa maxay waxaan isugu waa khamiisyo dahaba halkeen joognaa baan yidhi si uu dhahay waa jannadii amarkana cadi baa faraa la galay waan toosay Sheekh Ismaaciil baan doontay arrinkayga bay saameyn ku samaysay horta ninkii barabaan isiri ninkii tabliiq ahaa jannada ku kulanteen waan eegayo waa nin masaajidka dirqi kaga baxa sidoo uga baxaba ay adagtay sidoo waagu u bariyo gobolku ugu dhacayo aniguna dawladdan hoosaan u shaqeeya Sheekh Ismaaciil baan doontay Sheekh Ismaaciil ilaa uu ku naxariiso adeer baan ku wadaana dawladdan hoosaan u shaqeeya dawladaha ayaa waxaana dhibaa dadka ka soo gaadha ninkana masaajidka kama baxayo hagee sidee isu waafaqaysaa yariyadaydii ismabuu dhibin maanta uu inaga hooseeya xaramku joogay wixii ugu yiri Cabdicasiisow halkan baad ku dambeynaysaa buur tabliiqa idamka Ilaahay aad ku dambeynaysaa sidaa intuu weege waxa la fadhiya rag maanta wada dhinto Sheekh Maxamed Aadan iyo Sheekh Cabdirashiid iyo culimadii wada dhimatay amiirada ahaa wuxuu yiri sallu ala al-habib Allahumma salli wa barik alayhi war faatixada umarabuud faatixadii baan loo maray waxa hortana dhaxmartay qisooyinka Sheekh Ismaaciil baan ku noqonaya Sheekh Ismaaciil wuxuu ahaa nin taajirka iyo faqiirka labaduba ay isku mid yihiin nin aan magaciisa sheegayno taajir Ilaahay baa taajire ayaanu anaga nin dhintay aanu Ismaaciil baa dhacaye in mar aynu 3 awr iyo 3 gaari oo raashin uga doonne waa 2006 meelaha ninkii baan u tagnaa waxaan niri 3 neefna keen 3 gaarina keen uu isu kaay xariifiyo wuxuu yiri waar anigu neef ku raataan bixinayay gaari nimanka tabliiq maana wuxuu diisideen way sitaana adigu duca mid doonaysaa baan niri haa buu yiri la gaariyo neef ku nisi sheekhi baan u tagnay wuxuu yiri waar yaa idii diray shuura waxa lagu keenaaye qof waliba 3 cisho waaysta wuxuu xulila ninkii taajirka baan ku noqono waxaan niri xoolahaagi waa la diiday ninkii wuxuu yiri waxa maxaraaba dema ya shuuraba ma ilaahayna anaga janno kula jeclaale waan niri waar wuxuu yiri sheekhi ku noqdo waxaan bixinayaa 5 gaari oo raashin iyo 5 awr ila jannadii uu qaaqayraba ninkii diidanaa labada neefka iyo gaariga ayaa yiri wallahi 5 baan bixinayaa Sheekh Ismaaciil baan ku noqono Sheekh Ismaaciil ninka caynkaasi yiri baan niri wuxuu yiri Sheekh Ismaaciil waxba kama doonayna 3 cisho wuxuu xuliyay anaga bixinayna u yeera ninkii baan u keenay ninkii baa yiri Sheekh Ismaaciil horta waa joogiya laakiin adeer de waxay ku xaraam bay noqonayaan bal waxiga bixi waxiga qaad wuxuu yiri 2 awr iyo gaari raashina laakiin haw baranin waxaan uga socdaa inay dadku iskugu mid ahaayeen madaxnimadaada wallahi waxa raajiya wuxuu Sheekh Ismaaciil oran jiray oo diintaada dadka geliya ka taajirka ka suldaanka ka faqiirka ka madaxweynaha markaad isku si kula hadasho eed kala hadasho weynaanta Ilaahay sharafta Ilaahay cisiga Ilaahay korka Ilaahay eed aakhirada kala hadasho lagu waarayo wallahi qof waliba uu ku jeclaanaya Sheekh Ismaaciil wuxuu gaaray inuu magaalada Hargeysa dhex mari kari waayo jacayl dartii ummadoo dhamay jeclaato markii horena waa ninka quraatay Sheekh Ismaaciil ninkii midada galiyay taariikhda waa ku haysaan waa maxay magtaadu baa leeyahay waa 3 cishood Ilaahay dartii u baxday buu maanta xaqiiqi ka suurtooda Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu toobadayna waafajiyo Sheekh Ismaaciil wuxuu oran jiray waar 100 sano noolaan mi sidoo dambe 100 horena ma noolayn inta yaraad nooshahay isku darsanin adigoo Afrika jooga faqriga Afrika iyo halaagan Afrika iyo isku darsanin faqriga aakhiro waar Ilaahay agtiisa taajir ka noqo Ilaahay agtiisa sharaf ka yeelo Sheekh Ismaaciil wuxuu jeclaa dadka inta u jilcisanay inta inagu aynu fuqarada u naqaano inta lagu dhex jiraano waa inta wallahi waxa fara badan dad badan oo aydan salaanta ka qaadeen dad badan oo aydan wax weyn u arkin oo Ilaahay agtiisa wax weyn ka kaanama hadii gacmaha sida yiraahdaan Ilaahay maqlaayo waxaan u duceynayaa Sheekh Ismaaciil waxaan u duceynayaa culimadii diinta la dhaqaajisay ee tabliiqa la dhaqaajiyay Sheekh Maxamed Aadan kamid ahaa Sheekh Daahir kamid ahaa Sheekh Cabdirashiid kamid ahaa Sheekh Cabdiqaadir Garweyne kamid ahaa waa inta anigu aan soo gaadhay waxaan markii u dambeysay waa ka amirkayga Sheekh Mahad buu hayo Sheekh Cabdiraxmaan jigjigo halkii nimanka ka tagay waxaanu Pakistan iyo Sheekh Cabdiraxmaan tabliiq khadiibka markiiska waxaanu ka wadanay Pakistan sanadkii hore iyo culimada waaweyn ee Pakistan fadhida culimadii tabliiqa bilowday Sheekh Maxamed Ilyas iyo Sheekh Haruun Sheekh Yusuf
sheekh sacad oo imika nool iyo axmed badla sheekh imika bakistaan xukuma iyo dhammaan culummada oo dhan sheekh axmed laad oo isaguna hindiya culummada waaweyn diinteena soo gaarsiisay diinteenna waxay u baahan tahay dadaal iyo fikir diineed iyo murug diineed iyo dadaal diineed waxaan kaga baxayaa warni walooba inta la nool yahayna waa in yar war sidaa sheekh ismaaciil aynu wada noqonno war diinta aynu noolayno war kelmadda laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah laabteenna ha gasho war ilaahay wuxuu yidhi walaa tamuutuuna ilaa wa antum muslimuun war nina walowba isuma haynee ilaahu annagu islaamanna dildhaha waayo maxaa la yidhi man aakhira kalaamihi laa ilaaha illa allah dakhala aljanna salluu cala alxabiib